Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada xalqadda 12aad ee taxanaha Falastiin. Waxaan xalqadan uga hadli doonaa xilligii Saliibiyiinta iyo ku soo noqoshadii xukunka Muslimiinta ee magaalada Qudus. Magaalada Qudus waxaa maamulayay Muslimiinta ilaa bilowgii Saliibiyiinta ee sanadkii 1099 taariikhda miilaadiga, una dhiganta sanadkii 493 ee taariikhda Hijriyada. Saliibiyiintu waxay ku qabsadeen magaalada Qudus dagaal dhiig badani ku daatay, iyagoo magaalada Qudus oo keliya ku dilay 70,000 oo qof oo ka mid ahaa dadkii magaalada deganaa. Falastiin inteedii kale iyada warkeedaba iska daa. Waqtiga qudbiga dhagaxa, The Dome of the Rock, waxaa laga dhigay kaniisad. Qaybo ka mid ahaa Masjidul Aqsana waxaa loo isticmaalay inay noqdaan xeryaha fardaha Saliibiyiinta. Raadadkii xadgudubyadii noocaas ahaa ee Saliibiyiinta waxay ku xardhan yihiin dhagaxaanta Masjidul Aqsa ilaa maanta. Xilliga Muslimiintii Qudus ku noolayd wax xorriyad ah noocay doontaba ha noqotee lama siinin. Si kastaba ha noqotee, iska caabintii ay boqortooyooyinkii daciifka ahaa ee Muslimiintu iskaga caabinayeen Saliibiyiinta weligood ma aysan joogsan. Saliibiyiintu waxay la kulmeen dad ilbaxnimo iyo dhaqan sare leh. Inkasta oo ay militari ahaan daciif u ahaayeen, Muslimiintu xilligaas waxay lahaayeen awood damiir iyo firfircooni oo ay ku dagaalami karaan. Salaaxudiin, oo ahaa nin astaan u ahaa jiildan, wuxuu sii waday dagaalkii xoreynta ee ay bilaabeen raggii isaga ka horreeyay, kuwaas oo kala ahaa Cimaadudiin Sinki iyo Nuurudiin Sinki. Dagaalkii Hittin ee dhacay sanadkii 1187 taariikhda miilaadiga wuxuu noqday mid wax ka beddelay taariikhdii Saliibiyiinta. Dagaalkaas wuxuu horseeday xoreyntii magaalada Qudus, maadaama ay Muslimiintu ku gacan sarreeyeen dagaalka. Raadkii ugu dambeeyay ee Saliibiyiinta waxaa lagu cirib tiray burburintii boqortooyadoodii Akbar sanadkii 1291. Mongooliyiintii iyo Tataarkii waxay noqdeen halistii xigtay ee magaalada Qudus soo food saartay, waxayna ku guuleysteen inay xukumaan waqooyiga Falastiin sanadkii 1260 taariikhda miilaadiga. Waxyar kadib, si kastaba ha noqotee, Mongooliyiintii iyo Tataarkii waxaa lagu jebiyay dagaalkii Caynu Jaaluud ee ka dhacay waqooyiga Falastiin bishii Sebtembar sanadkii 1260. Tan iyo waagaas, Falastiin waxay ku hoos jirtay xukunkii Muslimiinta, waxaana markii ugu horreysay xukumay Mamluukiyiintii intii u dhaxaysay sanadadii 1260 ilaa 1516. Kadibna waxaa xukumayay Cusmaaniyiintii intii u dhaxaysay 1516 ilaa 1917. Magaalada Qudus ayaa wixii intaa ka dambeeyay hoos tagtay gumaystihii Ingiriiska. Sanadkii 1948, qaybta galbeed ee magaalada Qudus waxay ka mid noqotay dhulalkii Falastiiniyiinta ee Israa'iil ay qabsatay. Budhcaddii Sahyuuniyaduna waxay burburiyeen 37 ka mid ahaa 41 xaafadood ee Falastiiniyiinta ee ku yaalay magaalada Qudus iyo hareeraheeda, waxayna barakiciyeen 80,000 oo Carabtii maxalliga ahayd ah. Qaybtii hadhay ee magaalada Qudus oo ahayd qaybta bari waxaa la hoos geeyay sidii qaybihii kale ee daanta galbeed maamulka Urdun. Dagaalkii 1967 ayay qaybtii bari ee magaalada Qudus u gacan gashay Sahyuuniyadda. Ugu dambeyntii, Israa'iil waxay magaalada Qudus wada qabsatay sanadkii 1980, waxayna ku dhawaaqday in magaalada Qudus ay tahay mid keliya, yacni caasimadda Israa'iil ee abadiga ah. Goobaha barakaysan ee magaalada Qudus. Sida aanu horey u soo sheegnay, magaalada Qudus waxay ka kooban tahay meelo goobo barakaysan u wada ah in ka badan kala badh dadka adduunka. Waxaa ku aruursan goobaha barakaysan ee dunida. Qaybtan waxaan ku arki doonaa dulmar guud oo ku saabsan goobaha barakaysan ee magaalada Qudus ee Muslimiinta, Masiixiyiinta iyo Yuhuudda, halka qaybta xigta aan diiradda ku saari doono Masjidul Aqsa. Dadka Muslimiinta ah, Masjidul Aqsa waa goobta ugu muhiimsan Muslimiinta ee dhulka Falastiin iyo masjidka saddexaad ee barakaysan ee Islaamka.
Meel aan sidaa uga sii fogeyna waxaa ka dhisan masjidka taariikhiga ah ee Cumar oo laga dhisay goobtii uu Khaliif Cumar ku tukaday imaatinkiisii magaalada Qudus si uu furayaashii Qudus ugala wareego baatriiqii gacanta ku hayay. Magaalada Qudus waxaa ku yaala qabuuro taariikhi ah oo ay leeyihiin muslimiintii hore ee timid dhulka Falastiin, kuwaas oo ay ku jiraan qaar ka mid ah asxaabtii Nebi Maxamed, nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee. Ka sokow aaminsanaanta barakaysnaanta dhulkan, waxay ku dhiirigelisay mulkiilayaal badan oo maxalli ah inay u qoondeeyaan dhul ballaadhan Islaamka waqaf. Sida uu qabo sharciga Islaamka, dhulka la waqfay waa hanti ay leeyihiin dhammaan dadka muslimiinta ah ab ka ab inta ay jiraanba. Dhulalkii la waqfay waxaa ka mid ahayd xaafaddii Al-Maqribiyi ee ay Yuhuuddu burburisay. Xaafaddaas oo Salaaxudiin uu ugu talagalay mutadawiciintii reer Morocco ee isaga ka barbar dagaalamaysay markii uu Qudus xoreynayay. Xaafaddaas waxay hadda Yuhuuddu u beddeleen daarad ay ku cibaadaystaan Yuhuudda, waxayna u dhowdahay The Wailing Wall, derbiga baroorta. Dhulka Falastiin ee la waqfay waxaa kale oo ka mid ahayd buurtii Abu Qunaym oo markii dambe deegaamayn loogu sameeyay Yuhuudda, loona bixiyay Harhooma. Ka sokow masaajidan, qabuuro, dhul badan oo waqaf ahaa, iskuullo iyo baro badan oo suufiyeed ayaa ku baahsanaa magaalada Qudus oo dhan. Maadaama ay ahayd magaalo Muslim laga soo bilaabo sanadkii 636 ee taariikhda miilaadiga, waxaa dabiici ah in laga helo dhexdeeda goobo diimeed iyo taariikheed oo muslimiintu leeyihiin. Sida cad, maadaama ay Qudus tahay magaalo barakaysan, waxaa meel walba oo ka mid ah hareeraheeda ku yaala xarumo Muslim. Dhagaxaanteedana waxaa ku xardhan raadad caddayn u ah in muslimiini ku noolaayeen halkaas muddo badan. Dadka Masiixiyiinta ah, magaalada Qudus waxay ka mid ahayd meelihii Ciisihii Nasaareed Nebi Ciise calayhi salaam uu dadka xaqa ugu baaqay. Safarkiisii caqiidada ee Falastiin waxay ahayd meeshii ugu dambeysay ee safarkii nebigan, waana goobtii lagu qabtay. Masiixiyiintu waxay rumaysan yihiin in Nebi Ciise calayhi salaam Qudus lagu dilay oo uu dilay taliyihii Roomaanka isaga oo fulinaya codsi kaga yimid hogaamiyayaashii Yuhuudda oo nebiga shirqoolkan u dhigay. Masiixiyiintu magaalada Qudus waxay u arkaan makhraati cad ee Ciise sarakicintiisii iyo kulankiisii ugu dambeeyay ee uu la qaato xertiisii. Dhacdadan kadib, Masiixiyiintu waxay magacaabeen mid ka mid ah kaniisadaha ugu barakada badan, kaniisadda Xabaashi barakaysnayd oo ay dhistay Helena, oo ahayd hooyadii imbaradoorkii ugu horreeyay ee Masiixiyiintii Roomaanka oo lagu magacaabi jiray Constantine. Badanaa dhammaan kaniisadaha Masiixiyiinta madaahibtooda adduunka oo dhan waxay wakiilo ku leeyihiin magaalada Qudus, iyaga oo gacan ka geysanaya muuqaalka bulsheed ee gaarka ah ee magaalada Qudus. Dadka Yuhuudda ah, sidaan ku soo aragnay qaybtii dhulkan yaale iyo taariikhda magaalada Qudus, Falastiin waxay ahayd meeshii Nebi Ciise calayhi salaam uu u haajiray oo reer binu Israa'iil ay ka soo jeedaan. Waa dhulkii ay u soo qaxeen reer binu Israa'iil, iyaga oo uu weheliyo Nebi Muuse calayhi salaam, kagana nabadgaleen xukunkii dulmiga ahaa ee Fircoon. Waa dhulkii ay ka aasaaseen boqortooyooyinkoodii taariikhiga ahaa, waana isla halkii boqortooyooyinkoodii lagu burburiyay. Haddaan u nimaadno magaalada Qudus, Yuhuuddu waxay rumaysan yihiin in macbadkii Sulaymaan laga dhisay Qudus dhexdeeda oo uu si sax ah uga hooseeyo dhismaha weyn ee Masjidul Aqsa. Waxay rumaysan yihiin in derbiga galbeed ee masjidka uu yahay qaybtii ka hadhay macbadka. Yuhuuddu derbigan ayay ku cibaadaysanayeen laga soo bilaabo ilaa dabayaaqadii qarnigii 18aad. Derbigan waxay Yuhuuddu ugu yeedhaan gidaarka baroorta. Qaar ka mid ah qabuurihii ku dhowaa Masjidul Aqsa ayay Yuhuuddu dib u aas-aastay, iyadoo lagu salaynayo aaminsanaantooda ah in qaar ka mid ahaa Yuhuuddii hore lagu aasay isla goobtaas. Qoditaanno ayaa lagu sameeyay qaybta hoose ee Masjidul Aqsa si loo helo raadadkii macbadkii Sulaymaan ama taallo ay Yuhuuddu leedahay oo ku taalla aaggan. Laakiin 40kii sano ee lasoo dhaafay, wax raad ah oo macbadkii Sulaymaan ah ama loo malaynayo lagama helin masjidka hoostiisa. Dadka ajaanibta ah ee booqda Qudus
waxay hadalkooda ku soo gabagabeeyaan iyagoo ku saleynaya magacyada Cibraaniga ah ee meelaha ay booqdaan in magaalada Qudus ay ka kooban tahay oo keliya goobo iyo xaafado Yuhuuddu leedahay. Laakiin magacyadan ay Yuhuuddu ula baxeen magaalada Qudus ma aysan jirin wixii ka horreeyay sanadkii 1948, mana aysan isticmaali jirin dadkii Carabta iyo Muslimiinta maxalliga ahaa ee halkaa joogay 1400 sano ee ugu dambeeyay. Tusaale ahaan, aan eegno magacyada albaabada magaalada qadiimiga ah ee Qudus. Jadwalkan hoose wuxuu isbarbar dhigayaa magacyadii Carabiga ahaa iyo kuwa cusub ee Cibraaniga ah ee ay leeyihiin iridaha qadiimiga ah ee laga galo magaalada Qudus. Tirada albaabada laga galo magaalada Qudus ee qadiimiga ah waa 8. Magacyadoodii Carabiga ahaana waxa ay kala ahaayeen: 1. Baabul Khaliil, 2. Baabul Jadiid, 3. Baabul Camuud, 4. Baabul Saahira, 5. Baabul Seydna Maryan, 6. Baabul Maqribiyi, 7. Baabul Raxma, 8. Baabul Nebi Daa'uud. Magacyada Cibraaniga ah ee ay Yuhuuddu ula baxdayna waxa ay kala yihiin sida tan: 1. Shakar Yaafo, 2. Shakar Hadash, 3. Shakar Damaska Shakar Shekem, 4. Shakar Herodonos, 5. Shakar Heriot, 6. Shakar Hayshfa, 7. Shakar Harameyn, 8. Shakar Tension. Xalqadana maanta intaa ayay nooga eg tahay. Si aad u wada daawato dhammaan xalqadaha taxanaha Falastiin, fadlan booqo playlist-iga uu ku qoran yahay taxanaha Falastiin.